Ma jiro wax ka dhadhan qaraar khiyaanada, waana mid in badan ku dareensiinaysay lamaanaha uusan ku jeclayn, isla markaana uusan qadarinaynin qiimahaaga. Markii aad cashar baranaysid, lagama maarmaan waxaa ah inaad hesho tusaale si aad marka horeba u fahantid casharka. Waxaan oran karnaa qisadani waa tusaale. Maanta waxaan idiin soo turjumi doonaa xalqo ciwaankeeda loogu magac daray maalmihii khiyaanada, bartamaha barnaamijka Discovery. Tani waa qiso ku dhacda wiil lagu magacaabo Jordan, kaasoo la haasaawaya gabar Soy lagu magacaabi jiray, isagoo u malaynaya in sheekadoodu si fiican u socoto muddo ku dhow 2 sano. Laakiin arrinka Jordan uusan ka warqabin ayaa ahayd in lamaantiisu ay ku khiyaanaysay nin kale isagoo aan ogayn. Jordan waxa uu ahaa bini'aadam xishood badan oo si weyn u haysta dariiqa degganaanta iyo ixtiraamka. Waxa uu ahaa mid in badan qadariya dadka kale. Dabcan waxa uu ahaa nin in badan ilaaliya xiriirka isaga iyo Soy, waliba darajadii ugu sarreysay. Qisada Soy iyo Jordan waxay ka bilaabatay xaflad aroos deegaan ay ku nool yihiin in badan oo dad ah. Xiriirka Soy iyo Jordan waxaa ka shaqeeyay gabar uu adeer u ahaa Jordan, taasoo ka dalbatay adeerkaasi Jordan inuu xiriir la sameeyo Soy, taasoo u arkaysay inay farxad u tahay inay aragto maalin Jordan iyo Soy oo wada jira. Laakiin ma suurtagelin arrinkaasi. Waa bilowday xiriirkaasi waliba si xiiso leh, taasoo keentay in durba la isfahmo, waxaana sheekadu gaartay ilaa iyo in la is-aamino in badan. Maalin maalmaha ka mid ayaa Soy fariin codsi ay qof talo ku weydiisanaysay waxay u dirtay asxaabteeda, balse fariintaasi waxay gaartay Jordan, waxaana gaarsiiyey mid ka mid ah asxaabta Soy oo markiisii horeba ka baaraandegay si ay u saacido maalin maanta oo kale. Waa muhiim taxadarka tallaabo kastoo aad qaadayso. Waa uu helay Jordan fariinta si uu u kashifo gacalisadiisa oo iyadu u diyaargaroobaysay la kulanka saaxiibkeeda kale, isagoo aan ka warqabin Jordan. Walow uu horey ugu sheegay inuusan qorsheynaynin inuu meel aado si uu iyada waqti ula qaato. Haddaba maxay tahay talada Soy ay u waday asxaabteeda balse gaartay Jordan lafsadiisa? Soy waxay asxaabteeda ka dalbatay inay ku caawiyaan say ka samayn karto si aysan labada ninba u lumin, waxayna markaasi hadalkeeda sii raacisay inay iyadu doonayso labada ninba inay cilaaqadooda xafidato. Sidoo kale waxay codsatay in talo laga siiyo sida ay ka yeelayso maadaama saaxiibkeed Jordan uu u sheegay inuusan meel u socon, una socdo iyada si uu waqti ula qaato. Fariinteedana waxay ku soo gabagabaysay inay lagama maarmaan tahay inay habeen romaansi ah la qaadato saaxiibkeeda kale, una baahan tahay qaab ay ku baajiso Jordan. Lama baaji karo Jordan, diyaar uma aha arrinkaasi. Jordan inuu Soy la kulmo waa wax khasab ah, ama waa ballan hore, mana ahan mid laga cudurdaaran karo. Maxaa yeelay Jordan hadafkiisa waa kashifaad, mana u cuntamayso inuu xitaa 1 daqiiqo ka bacdo la kulanka Soy. Dhammaan fariimahani waxay gaareen Jordan lafsadiisa, deedna waa uu carooday. Waxa uu dareemay inuu qalbiga ka jabay. Durbadiiba Jordan waxa uu bartiisa WhatsApp ku soo qoray fariin uu kula hadlayay asxaabtiisa, waliba uu kaga hadlayay khiyaanada Soy isagoo leh, markii gacalisadaada aad ogaatid khiyaanadeeda, 2 sano oo aad wada socoteen, la yaab in badan. Waxaa caadada ku sii saaidiyey Jordan ayaa ahayd inuu waqti badan gelin jiray iyada, sheeko, kulan iyo waxyaabo kale. Waxa uu soo dhigay fariin kale bartiisa WhatsApp isagoo leh, waqtigu macaan badanaa markaad ka faa'iidaysato. Waqti kaa lumay oo aadan ogayn sida uu kaaga lumay. Ka waran haddii lagu yidhaahdo waxaad ku lumisay faa'iido darro? Maxaad dareemaysaa markii aad la kulanto arrinkan? Suurtagal hadday tahay waqtiga in la tirtiri karo, waan tirtiri lahaa maalmahaasi xun, ayuu yidhi Jordan. Soy waxay aragtay dhammaan fariimaha Jordan iyadoo ka daalacatay bartiisa WhatsApp. Soy ayaa isku dayday inay dejiso Jordan, una sheegto wax walba inay u dhaceen si qalad ah, waliba fariimahaasoo aysan ka dambeynay tahay shirqool, balse taasi kuma qancin Jordan. Soy waxay ku andacootay inaysan ka dambeyn sheekadan, balse ay ka dambeysay saaxiibteeda, balse isku daygaasi ayaa noqday mid fashilmay. Mar kale Jordan waxa uu soo qoray fariin kale isagoo leh, waxa wax lagu qoslaa inay ii sheegayso inaysan iyada ka dambeyn waxa dhacay. Haddaba miyay dheeldheel u qaateen asxaabta Jordan fariimahaasi? Dabcan maya. Mid ka mid ah asxaabta Jordan ee dhinaca WhatsApp ayaa ku garab istaagay Jordan isagoo leh, xilligan uma baahnid inaad raadiso xaqiiqadaada, waxaad u qalantaa inaad soo afmeerto arrinka. Waxaan kalsooni ku qabnaa inaad leedahay go'aan kugu filan oo aad ku wajahdo arrinkan. Mid kale isagoo la hadlay Jordan waxa uu yidhi, tani waa cashar. Maalmuhu waxay ku baraan wax cusub, waana inaad u dulqaadataa.
ugu dambayn Jordan waxa uu soo afmeeray qisadani waxauna gebi ahaanba meesha ka saaray xiriirkii khiyaanada ku dhisnaa ee Soy. Wixii maalintaa ka dambeeyey Soy waxa uu u sheegay inuu ka tanaasulo sheeko kasta oo ku salaysan taasi iyo inuu galo dambi la mida kaasi. Jordan arrinkaasi waxa uu u aqoonsaday inay tahay khiyaanadii ugu xumeyd ee soo wajahda noloshiisa. Ilaa iyo maanta Jordan ma oggola inuu dib ugu laabto taariikhdaasi. Waxaa dhacay dhowr isku day oo Soy ay codsiyo ugu gudbisay Jordan iyadoo weliba kaashanaysa asxaabta Jordan. Maalina guul kama gaarin isku dayadaasi, dhammaan waxay noqdeen kuwo fashilmay. Markii mid ka mid ah saaxiibada kula kaftama Jordan maalmihii khiyaanada, waxa uu ku jawaabay Jordan, ka mid ma aha maalmaha isoo maray maalmaha aad ka hadlayso. Sidaasi ayuu ku qeexaa taariikhdaasi. Ugu dambayn Jordan oo fariintiisii ugu dambeysay ee khosaysa khiyaanadii Soy soo dhigay bartiisa WhatsApp isagoo leh, u jabi maayo qof walba oo ila doonaya inaan guuldaraysto, bal inaan arko dad samaynaya waxaan raalli ka ahayn. Waxaan ka qaadayaa firfircooni. Waxaan ku rajo weynahay inaan guulaysto in badan. Haddii aan doonayo inaan maro waddo la mida tii aan ku khasaaray, waxay noqonaysaa mid aan ka baaraandego iyo mid aan kalsooni ku qabo in badan. Laakiin maanta maya, waa markay ku habboon tahay ayuu ku soo gabagabeeyey Jordan. waxaan sheekada Soy iyo Jordan ka baran karnaa inaad markaad xiriir jecel samaynaysid aad ka dheeraatid wax walba oo dhaawacaya xiriirkeena. Haddii ayan dhabka ahayn xiriirkiinu sii socdo, u sheeg runta oo si cad ugu dhammee wax walba sidii awalba si cad ugu bilowday.